Croatia FIFA World Cup ee koobka adduunka waxay ka soo qayb galeen ilaa iyo 5 jeer 1998 oo lagu qabtay Faransiiska 2002 oo lagu qabtay Japan iyo Korea 2006 oo Germany ahaa 2014 oo Brazil ah iyo 2018 oo Ruushka ayuu ka soo qayb galay 5 jeer wadankan waxa uu xorriyadiisa qaatay 25 Juun 1991 koobka adduunka waxaa la bilaabay 1930 Croatia kama ay soo qayb galin waxa ka soo qayb galay koobka adduunka markiisii ugu horeeyay wadanka Croatia koobkii adduunka ee 1998 lagu qabtay Faransiiska 8 July 1998 habeenimo 3 saac ciyaar dhexmartay Faransiiska iyo Croatia oo ahayd semi-final waxa Croatia looga adkaaday 2-1 Croatia halka gool ugu dhaliyay Siko daqiiqadii 46 ee kaambiyadii labaad 1-0 till Kroatien. Det är Boban tekniskt. Labada gool Faransiiska waxa uu dhaliyay Thuram daqiiqadii 47 ee kaambiyadii dambe iyo daqiiqadii 70. Ja, det är Thuram som gör målet, men det är Boban som är ouppmärksam. En match kvar att spela. Det nu blir final eller match om tredje position. Det är Thuram igen. Ernas waxay ka dhacaysay Stade de France Saint-Denis waxaana ka soo qayb galay taageerayaal 76,000 waxaana ciyaarta albiitarka ah Joseph Maria Garcia oo u dhashay wadanka Spain ciyaar dhacday 12 July sanadkii 1998 ee koobka adduunka lagu qabtay Faransiiska habeenimo 3 saac ciyaar bilaabatay oo u dhaxaysay Netherlands iyo Croatia ee loo tartamay kaalinta saddexaad Croatia waxa ay ku adkaatay 2-1 oo Netherlands ku dhufatay Netherlands goosha waxa uu dhaliyay Zidane daqiiqadii 22aad ee qaybtii hore ee ciyaarta Croatia waxa labada gool u kala dhaliyay Brosineki oo daqiiqadii 40aad ee qaybtii hore iyo Suker oo daqiiqadii 36aad ee qaybtii hore dhaliyay garoonka lagu qabanayna waxa la dhihi jiray Barce de Zebrinse oo Paris ku yaalay taageerayaashan waxay gaareen garoonka soo xaadiray 45,500 ciyaartan waxa albitar ka ahaa Evifiano Gonzalez oo u dhashay wadanka Uruguay sanadkii 2002 koobkii adduunka ee martigeliyeen Korea iyo Japan group stage ayaa lagu reebay Croatia koobkii adduunka sanadkii 2006 ee lagu qabtay Germany Croatia waxa lagu reebay group stage koobkii adduunka sanadkii 2014 ee lagu qabtay Brazil waxay ku hartay koobkii adduunka 2014 Croatia group stage koobka adduunka sanadkan 2018 ee uu martigelinay Ruushka Croatia waxa ay muujinaysaa door aad u weyn taas oo dhammaan ciyaarihii ay soo ciyaartay ay ku soo baxday heer aad u wanaagsan Croatia hadda waxa ay joogaan iyadii iyo Faransiiska finalka labadooda oo laga dhursugayo qofkii ku guuleysto koobka adduunka ciyaarta waxay dhici doontaa galabta Axada oo taariikh 15 bisha July sanadka 2018 xilliga 12 maqrib waxaan sugaynaa labada kooxood kooxdii ku guuleysatay koobka adduunka Faransiiska oo martigeliyay 1998 isaga ayaa ku guuleystay koobka Croatia qaadan doonto oo kari kooban maqanay Faransiiska ku laabeysan doonto